mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Sool oo maanta shir ay si wada jir ugu qabtay xafiiska ku leeyihiin magaalada Laascaanood ayaa ku dhawaaqay macalinka xulka kubadda cagta ee gobolka Sool sidoo kalena shaaciyay gudiyada kala hagi doona kooxaha kubadda cagta ee gobolka Sool maadaama uu koobkii gobolkani uu bilaamayo 26 bisha oo ku aadan isbuuca soo socda gudiyada farsamada ee gudida anshax iyo dacwadaha ayuu warbaahinta magacyadooda u kor akhriyay isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Sool Serfaad Axmed Cali Haybe sidoo kale isuduwaha ayaa sheegay in macalinka xulka kubadda cagta ee gobolka Sool ay ku soo xuleen karti iyo sidoo kale khibrad uu leeyahay leelinta kooxaha ayna u garteen inuu yahay mas'uul guulo badan iyo horumar gaarsiin kara xulka kubadda cagta ee gobolka Sool maadaama uu guulo fara badan oo hore u soo gaarsiiyay ciyaartoydii matalaysay xulka gobolka Sool koobkii wuxuu inoo furmayaa 26 bishan September 2019 insha Allah oo garoonka Cabdi Bil Cabde uu inoo qabsoomaya runtii dadaal dheer baan ku jirnay waxaan hadda ku jirnaa gabagabadii oo runtii koobkii waa inoo diyaar wana bilaabmaya insha Allah sida deadline-ka gudoomiyuhu sheegayna Khamiista bari ah ayay ku eeg tahay in kooxihii ay liisaskii intii ugu dambeysay ku soo gudbiyaan todobada cisho waxaanu galeynaa diyaar garowgii u dambeeyay oo qaybta qalabka live-ka iyo aanu tijaabinayna internetada sidoo kale shirkadaha aanu wali ugu baaqaynaa kuwa aan isku xayeysiin in ay garoonka isku soo xayeysiiyaan kana qayb qaataan insha Allah inta kadib waxaanu shirkan jarayd maanta u qabanay in aanu ku shaacino gudiyadii koobkan ama tartanka inoo daadihin lahaa gudida dacwadu waxay ka koobnaan doonaan 5 xubnood Dirsaaq Cadaani Maxamed Maxamuud Faarax Maxamed Xasan Cabdi Jaamac Abyan Maxamed Xirsi Cabdirsaaq iyo Cabdirsaaq Maxamed Jaamac 5 xubnood waa gudida dacwadaha iyo khilaafaadka iyo anshax marinta gudidaas waa gudida insha Allah inta tartankaasi socon ay magacaabnaanayaan shuruudaha iyo sharciyada ama hababka insha Allah ilaahay khilaafaad inaguma keenay hadii ba yimaadaan loogu soo gudbin doono iyaka ayaa kooxaha la kulmi doona una soo gudbin doona gudida farsamada ee inta koobku socdo wixii farsamo runtii saxaya ama daadihin doona ama runtii fulin doona wixii farsamo ah waxa gudoomiye u ah Salmaan Cusmaan Cabdinuur Xaashi xoghayana waxa uu ah Cabdixakiin Khaliif aw Cilmi waxa xubinka Cabdiraxmaan Maxamuud Salaad Khalid Cabdiraxmaan Axmed iyo Maxamuud Maxamed Axmed shantaasina waxay noqonayaan aan iraahday gudida farsamada oo intuu tartankaasi socdo waxa la wixii farsamo oo koob ku baahan yahay runtii iyaga ku shaqo leh oo gudan doona inta kadib waxaan halkan kale oo kaga dhawaaqnaa maanta tartankaasi si uu inoogu noqdo tartan caalami oo runtii aad u qurux badan waxa laga maarmaan noqday in la helo koobka intuu socdo dhalinyarada runtii ugu fiicnaata koobka tartanka intuu socdo sida daraaddeed waxa noo soo baxday inaan u baahanahay macallin gobolkuna uusan ka maarmin inuu yeesho macallinkii ama tababarihii xulka gobolka Sool waan ognahay dad badan inay yiraahdeen gobolba ma dhaweey maxaa loo si magacaabaya hadda laakiin anagu waxaan jecelnahay intuusan koobku bilaabin inaanu dadaalkaygu ka hor bilowdo ma nihin gobol runtii markuu koob yimaado kaliya xul magacaaba waxaan doonaynaa xulkaasi inuu noqdo mid shaqeeyo oo runtii sanadkoo dhan xulka gobolku ciyaaro friendly loo diyaariyo amaba koobab haddii markaa jiraan koobab waxaan kale uga gol leenahay in ay dhalinyarada u ahaato dhiirigelin runtii waxaynu wada ognahay markuu qofka dhalinyarada ama sportska ahi sportska ka soo bilaabo xaafadda uu markaa dariskiisa iyo area ku ciyaarayo inuu ku xojiyo iskuulka iyo dugsiyada kadibna tuulo gobol markuu gobol gaadho wuxuu u baahan yahay runtii inuu qaran u ciyaaro marka anagoo gobolkii marayna waxaanu markaa garanay inaan tababarihii gobolkii xulkii gobolka sameeyno si jaranjaradaas ay u dhisnaato sida daraaddeed waxaanu u garanay markii aanu eegnay aqoontiisa markii aanu eegnay kartidiisa markii aanu eegnay waayo aragnimada uu runtii u leeyahay dhalinyarada gobolka Sool tababare Guuleed Cabdalla Jaamac oo runtii aan oran karno
waxaan ugu magac darnay tababarihii guusha. magaciisu waa guuleed. runtii waxaan u garanay inuu noqdo tababaraha gobolka Sool. ugu dambeyn waxaan dhalinyarada gobolka kula dardaarmayaa tababaraha aanu xulnay idinkuma aanu xulin xaafad, deegaan, qabiil iyo koox. waxaan idinku xulnay waa aqoontiisa, waa khibradiisa, waa kartidiisa. haddii uu dhalinyaro xulo micnaheedu ma aha dhalinyaradaas inay dhaxal u yeesheen xulkaas. xulalka caalamka saynu wada ognahayba way isbedbedeli karaan. labadii bilood waxaa laga yaabaa inuu tababaruhu xulkaa bedelo, qaar cusub ku daro, sida ciyaaraha caalamka aad daawataan. waxaan idinkula dardaarmaynaa runtii inaad kula shaqaysaan, kuna soo dhaweysaan. wuxuu ahaan jiray runtii tababare hore. waxaa isna halkaasi ka hadlay qodobo khuseeya koobka kooxaha heer koowaad ee gobolka Sool gudoomiyaha isboortiga ee gobolka Sool Asad Yaasiin Cumar Maalin. dadweynaha waxaan ugu baaqayaa in ay ka soo qayb galaan ciyaaraha koobka Ciyaaraha ee biloomay muddada ta kale kooxaha naadiyada koobka ka qayb galaya. waxaan u sheegayaa kala iibsigii kooxaha ciyaartooyga in ay maalintii ugu dambeysay tahay maalinta Khamiista. iyaga iyo maamulkoodaba in ay liisaskii soo gudbiyaan. waxaan maleynayaa guuleed inuu yahay tababarihii guusha, isuduwihii guusha, sanadkii guusha, gudoomiyihii guusha. waxaan maleynayaa sanadkan inay noqon doonto Sool guul. markaa waxaan rajaynayaa shacabkuna inay aad u taageeraan koobka iyo tababaraha cusub iyo horumarka ka socda gobolka Sool ee xagga isboortiga. xaqiiqatan marka runta laga hadlo, isku soo wada duuba koobka ay ku tartamayaan kooxaha heer koowaad ee gobolka Sool ayaa la filayaa in usbuuca dambe ka furmo garoonka kubadda cagta ee Cabdi Bila Cabdi ee magaalada Laascaanood. waxaana diyaargarow xoogan koobkaasi ugu jira kooxaha ka dhisan magaalada Laascaanood oo mid walbaaba u higsanaya sidii uu koobkaasi ugu guuleysan lahaa. maxamed guray, Isaab TV, Laascaanood.